السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada daawadayaal hal channelkan aan deeqsi official. maanta insha Allah waxaan baran doonaa sida ku arki kartid message laga delete gareeyay WhatsApp-ka. marka message laga delete gareeyo waxaad isticmaali kartaa program loo yaqaan NoteSafe. NoteSafe waxa laga helayaa Play Store waxaad ku qoraysaa NoteSafe. insha Allah marka soo kugu soo dhigo aniga way soo delete gareeyay open baad oranaysaa. open marka tiraahid marka soo kugu soo dhigo sida u shaqeynayna eegina allow baad oranaysaa, haddana allow baad oranaysaa, haddana allow baad sii oranaysaa. marka waxaad wada furanaysaa intaad allow ku dhufatid ay wax wada furanaysaa application-ka meesha ku qoran tahay ayaad on ka dhigaysaa. marka allow baad ku sii dhufanaysaa is raadinayaa. markuu sidaa kugu soo saaro insha Allah waxaad ku dooranaysaa meeshaas wada furaysaa, haddana wada xidhaysaa programka joinsi ayaad ku dhufanaysaa. insha Allah waxaan ku dhufanayaa WhatsApp-ka laba WhatsApp aan ku isticmaalo WhatsApp kalena ku furanaya insha Allah. iminka waxaan ku isticmaali doonaa laba WhatsApp-ka koowaad aan gelina fariimaan ka soo dirana WhatsApp-ka kale ka eegina insha Allah. marka aan eegina waka WhatsApp-ki iminka waxaan u dhiganaa qofkii baan u diraynaa assalaamu calaykum. marka isaga aan eegin ayaan ka delete garanaya insha Allah. marka sidaa tahay waad aragtaa inaan u diray qofkii. marka WhatsApp-ka kalan geliya inuu soo diraan eegaya uu soo diray san u tijaabiyo ilan iminka tijaabin ku jirna waan delete garanaya. markaan delete garayo waxaan gelinaa insha Allah WhatsApp-ka kale waad aragtaa inaan delete gareeyay. marka waxaan gelinaa NoteSafe-kan soo delete gareysanay. NoteSafe marka soo kugu soo dhigo waxaad gelaysaa WhatsApp-kana waxa xag hoose ku soo dhigaya fariinta ayaad ka arkaysaa qofka. marka waxa ku soo diraa assalaamu calaykum walaalkay. insha Allah casharka inaad ka faa'iidaysaan baan filayaa. haddaad ka heshaan insha Allah like subscribe-ka nagu caawiyo. fadlan anaga ilaawin subscribe-ta.